dowladda qatar ayaa ugu baaqday beesha caalamku in la xoojiyo dadaalada caalamiga ee lagu hubinayo ay dhammaan xarumaha nucleerka ee Israa'iil la hoosgeeyo kormeerka hay'adda caalamiga ee tamarta nucleerka IAEA isla markaana Israa'iil ay saxiixdo heshiiska xakamaynta faafinta hubka nucleerka ee NPT. baaqan ayaa ka yimid hadal ujeediyey danjiraha iyo wakiilka joogtada ah ee qatar u fadhiya xafiiska qaramada midoobay iyo hay-adda caalamiga ee Vienna Jasim Yacob Al-Hamadi xilli uu ka hadlayay kulan ay yeelatay guddiga sare ee IAEA. kulankaasi ayaa lagu dooday xaaladda dhulka Falastiin ee la haysto iyo awoodda nucleerka Israa'iil. mudane Al-Hamadi ayaa xusay in beesha caalamku ay hay-adaha caalamiga ah ay tahay inay ka soo baxaan waajibaadkooda iyagoo raacaya qaraaradii hore ee golaha guud ee qaramada midoobay IAEA iyo shirkii dib u eegista NPT ee 1995 kuwaas oo dhammaantood ugu baaqay Israa'iil inay xarumaheeda nucleerka hoos keento kormeerka hay-adda la socodka iyo xakamaynta hubka nucleerka ee IAEA. wuxuu tilmaamay in qaar ka mid ah qaraaradaasi ay si aada ugu baaqayaan in Israa'iil ay ku biirto NPT iyada oo ah waddan aan haysan hub nuclear. sidoo kale wuxuu xusay in dhammaan dalalka bariga dhexe marka laga reebo Israa'iil ay saxiixeen heshiiska NPT isla markaana ay haystaan heshiisyo rasmi ah oo ay la leeyihiin IAEA. wuu carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay sii wado siyaasadeeda gardarrada ah oo ay ka mid yihiin kor u qaadista baaqyada xag jirka ah ee lagu barakicinayo shacabka Falastiin, xoojinta weerarada militari ee ka dhanka ah magaalooyinka iyo xeryaha qaxootiga ee daanta galbeed, xanibista gargaarka bini'aadanimo ee Gaza iyo hor istaagga howlaha hay-adda UNRWA. intaa waxaa dheer danjire Al-Hamadi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda qatar ay toddobaadkii hore u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ warqad qoraal ah oo la xiriirta codsi talo bixina kaasoo ku salaysan qaraarkii golaha guud ee qaramada midoobay ee la ansixiyey 19 Disembar 2024. codsigan ayaa doonaya in maxkamaddu ay caddayso waajibaadka Israa'iil ee la xiriira howlaha qaramada midoobay, hay-adda caalamiga ah iyo dalalka kale ee saddexaad. mudane Al-Hamadi ayaa carabka ku adkeeyey in qoraalka ay qatar u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ uu si cad u qeexayo waajibaadka Israa'iil ee inay ogolaato qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah gaar ahaan UNRWA iyo hay-adaha gargaarka bini'aadanimada inay si xora uga shaqeeyaan Israa'iil iyo dhulka Falastiin ee la haysto. sidoo kale qaraarkaasi wuxuu ugu baaqayaa Israa'iil inay ixtiraamto oo ay ilaaliso hantida qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah oo ay ka mid yihiin dugsiyada, xarumaha caafimaadka, kaabayaasha gaadiidka, ilaha biyaha iyo shaqaalaha iyo hay-adahaasi. gabagabadii mudane Al-Hamadi waxa uu xoojiyey baahida degdega ee loo qabo in beesha caalamka iyo hay-adaha caalamigu ahba ay qaadaan tallaabo adag oo lagu khasbayo Israa'iil inay fuliso qaraarada caalamiga ah ay aqoonsato xaqa shacabka Falastiin ay u leeyihiin ay ka tashigooda iyo dhismaha dowladooda madaxa bannaan, isla markaana la soo celiyo nabadda iyo xasiloonida bariga dhexe si looga fogaado khataro caalami ah oo dheeraad ah. inkasta oo la rumaysan yahay in Israa'iil ay haysato boqolaal hub nuclear ah, haddana si rasmi ah uma qirato arrintaas mana saxiixdo heshiiska aan faafinta hubka nucleerka NPT-ga. Israa'iil iyo Xamaas ayaa sabtidii muujiyey inay isu diyaarinayaan wejiga xiga ee wadahadallada xabad joojinta xilli dhexdhexaadiyaashu ay wadaan dadaalo lagu dheeraynayo xabad joojinta jilicsan ee 42 maalmood socotay oo bilowday bishii January ee sanadkan. Xamaas ayaa sheegtay inay jiraan tilmaamo fiican oo la xiriira bilowga wadahadallada wejiga koowaad ee xabad joojinta, balse faahfaahin dheeraada ma ay bixin. dhanka kale Israa'iil ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso wadahadallada xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa bayaan wuxuu ku sheegay Israa'iil waxa ay aqbashay casuumaadda dhexdhexaadiyaasha oo ay taageerayso Mareykanku, waxaana Isniinta la diri doonaa wafdi Israa'iili ah oo tegaya Dooxa si ay u horumariyaan wadaxaajoodyada.
wafdi ka socda xamaas ayaa ka qayb galaya wada hadallo xabad joojina oo ka socda qaahira, halkaas oo dhexdhexaadiyaasha masar oo gacan ka helaya saraakiil ka tirsan qatar ay ka shaqaynayaan fududaynta wadaxaajoojyada. ujeedadoodu waa in la gaaro wejiga xiga ee heshiiska, taas oo furi karta waddada lagu soo afjari karo dagaalka. afhayeenka xamaas cabdulatiif al qunuuc ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi, waxaan caddaynaynaa inaan ka qayb galayno wadahadallada wejiga labaad si ay u daboolaan baahiyaha iyo rabitaanka dadkeenna. waxaan ugu baaqayaa beesha caalamku inay dadaalada xoojiyaan si gargaar loo gaarsiiyo marinka Gaza loogana qaado godoominta lagu hayo dadka dhibaataysan. war-saxaafadeed dambe oo laga soo saaray kulan ay wafdiga xamaas ay la yeesheen madaxa hay-adda sirdoonka guud ee masar xasan maxamuud rashaad ayaa xamaas ku xaqiijisay inay ogolaatay in la dhiso guddi ka kooban xubno qaran oo madax bannaan oo maamuli doona Gaza ilaa inta laga gaarayo doorashooyinka. madaxweynaha masar cabdulfataax al-siisi ayaa hore u sheegay in qaahira ay si wada jira ula shaqaysay falastiiniyiinta si loo dhiso guddi maamul oo kooban oo farsamo yaqaano falastiiniyiin ah oo madax bannaan, kuwaasoo loo xilsaaray inay maamulaan Gaza kadib dhammaadka dagaalka Israa'iil iyo Gaza. hadalka madaxweyne al-siisi ayaa yimid intii lagu guda jiray shirkii jaamacadda carabta, kaasoo ansixiyay qorshaha dib u dhiska Gaza oo ay soo jeedisay masar, taas oo ka soo horjeeda aragtidii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Riviera Bariga Dhexe. iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ay sii socdaan ayaa duqeyna Israa'iil ka fulisay magaalada Rafah ee koonfurta Gaza sabtidii waxa ay ku dishay 2 Falastiiniyiin ah sida ay sheegeen ilo caafimaad. militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahoodu ay beegsadeen diyaarad drone oo ka soo gudubtay dhanka Israa'iil kuna dhacday koonfurta Gaza iyo shakhsiyaad dhowr ah oo isku dayay inay soo qaadaan, taasoo loo maleynayo inay ahayd isku day tahriibin fashilmay. dhinaca kale, la taliyaha siyaasadeed ee madaxa xamaas ayaa u xaqiijiyay Reuters in dhowr kulan ay dhex mareen hogaamiyayaasha xamaas iyo ergeyga Mareykanka ee arrimaha maxaabiista Adam Boehler. warbixinta ayaa ka caraysisay Israa'iil maadaama ay sheegtay in Mareykanku uu xamaas la yeeshay kulan gaar ah isla markaana uu bixiyay tanaasulaad aan lagala tashan Jerusalem. warbixintu waxay sheegaysaa in kulamadu ay ilaa iyo 5 jeer ay kulmeen wafdiga Mareykanka iyo xamaas. wasiirka arrimaha istiraatiijiyadda ee Israa'iil Ron Dermer ayaa si adag ugu jawaabay ergeyga Mareykanka ee arrimaha maxaabiista Adam Boehler intii lagu jiray wicitaan telefoon talaadadii, sida uu weriyey sarkaal reer galbeed ah oo la hadlay The Times of Israel. Dermer ayaa ka carooday kulan uu Boehler la yeeshay hogaamiyaha sare ee ka tirsan xamaas Khaliil al-Haya, kaasoo ka dhacay Dooxa isla maalintaas si ay uga wada hadlaan suurtagalnimada sii deynta maxaabiista Mareykanka ee ku jira Gaza sida laga soo xigtay la wareedyo. Dermer waxa uu si gaara uga xumaaday in Boehler uu la gorfeeyey tirada maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'iil sii deyn karto iyada oo aan la helin ogolaanshaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. sida laga soo xigtay sarkaalka reer galbeedka, Boehler wuxuu isku dayay inuu sharaxo in wadahadalladu ahaayeen hordhac isla markaana wax go'aana aan laga gaari doonin iyada oo aan Israa'iil ogolaan. saacado un kadib wicitaankii ay isku dhaceen Dermer iyo Boehler, warbaahinta ayaa shaacisay kulanka Boehler uu la yeeshay Khaliil al-Haya, sida uu sheegay sarkaal reer galbeeda. Mareykanku wuxuu tuhunsan yahay in Israa'iil ay si ula kaca u faafisay xogtan, taasoo sii wiiqday kalsoonidii labada dhinac. kulanka Mareykanka ee ahaa inuusan Israa'iil kala tashan kulanka talaadadii wuxuu yimid kadib markii Netanyahu uu bishii hore si cad uga hor yimid qorshahan, markuu maamulka Trump kala hadlay. sida uu sarkaalkaasi xusay, warbaahinta Axios ayaa sheegtay in Israa'iil si gaara uga soo horjeeday in kulan noocaasa la qabto iyadoo aan wax shuruudo ah xamaas lagu xirin.
warbaahinta Axios ayaa shaaca ka qaaday in kulankii talaadada uusan noqonin kii ugu horreeyey ee Bowler la yeesho mas-uuliyiin ka tirsan Xamaas. ila wareedyo ayaa sheegaya in toddobaad ka hor uu Bowler la kulmay wakiilo heer hoose ah oo ka tirsan Xamaas magaalada Dooxana kula kulmay iyadoo Israa'iil aysan markaas ka warqabin kulankaasi. Israa'iil oo si cad u dhaleecaynin Maraykanka kulamadii uu la yeeshay Xamaas, balse xafiiska Netanyahu ayaa Arbacadii soo saaray bayaan kooban oo muujinaya in Israa'iil aysan ku faraxsanayn wadahadalladan. bayaanka ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay Maraykanka u caddaysay mowqifkeeda ku aadan wadahadallada tooska ah ee lala yeelanayo Xamaas. kulamada Bowler iyo Xamaas ayaa diiradda lagu saaray sidii loo sii dayn lahaa maxbuuska Maraykanka Israa'iiliga ah ee Eden Al-Iskandar iyo sidoo kale sidii loo heli lahaa meydadka maxaabiista kale ee Maraykanka iyo Israa'iiliga ah ee la leeyahay. waxaa kale oo laga hadlay suurtagalnimada heshiis ballaaran oo lagu dhameeyo dagaalka laguna sii daynayo dhammaan maxaabiista weli ku jira gacanta Xamaas. mowqifka Israa'iil ee ka dhanka wadahadallada tooska ah ee Maraykanka iyo Xamaas wuxuu salka ku hayaa cabsi ah in Maraykanku uu luminayo xiisaha ku aadan heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalka marka la sii daayo dhammaan maxaabiista Maraykanka ah. ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff ayaa isku dayay inuu yareeyo walaacyada Israa'iil isagoo sheegay in Washington ay go'aan ka tahay in la sii daayo dhammaan maxaabiista. si kastaba ha ahaatee wuxuu qiray in Eden Al-Iskandar uu yahay mudnaanta koowaad ee Maraykanka maadaama uu yahay muwaadin Maraykan ah oo dhaawacan. Witkoff ayaa sidoo kale tilmaamay in Maraykanku doonayo in Xamaas ay sii dayso askariga 20 jirka ah ee ciidamada Israa'iil si ay u muujiso tallaabo wanaagsan oo ku wajahan wadahadallada. Witkoff waxa uu u muuqday inuu xaqiijinayo in sii deynta Eden Al-Iskandar ay ahayd mowduuc laga hadlay kulamadii tooska ahaa ee Bowler uu la yeeshay Xamaas, inkasta oo uu ka xumaaday in wadahadalladaasi aysan weli miro dhalin. nasiib darro waxa aan baranay waa in Xamaas ay noo sheegtay inay arrintu u eegayso qaab gaar ah. taasi waa xog muhiim ah inaan helo. sidaa daraaddeed waa sababta uu u yimid fariinta Twitter-ka ee madaxweynaha oo yiri Witkoff isagoo tixraacaya digniintii Trump ee habeenkii Arbacada taasoo ugu hanjabay Xamaas in la burburin doono haddii aysan si degdeg ah u sii dayn maxaabiista. Xamaas waxay diidmo ka muujisay hindisahan ilaa iyo hadda iyada oo ku adkaysatay in Israa'iil ay u hoggaansato qaab dhismeedkii la isku raacay bishii January kaas oo ciidamada Israa'iil ka dalbanaya inay si buuxda uga baxdaan Gaza isla markaana ay si rasmi ah u joojiyaan dagaalka inta lagu jiro wejiga labaad ee heshiiska xabad joojintu waxay ahayd inuu bilowdo Axaddii, balse taasi waxa ay ku xiran tahay wadaxaajoodyada kuwaasoo Israa'iil ay diiday inay si dhaba uga qayb gasho. Trump Khamiistii wuxuu difaacay wadaxaajoodyada tooska ah ee xukuumaddiisu ay la yeelatay Xamaas isagoo sheegay in wadahadalladaasi ay u socdaan si loo caawiyo Israa'iil in la sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta. waxaan caawinaynaa Israa'iil wadaxaajoodyadaas maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa la haystayaal Israa'iiliyiin ah, ayuu Trump u sheegay wariyaasha intii uu saxiixayay amaro fulineed oo uu ku sugnaa xafiiskiisa.